Yeah. Yeah. What? Yeah. maanta waxaan idin la wadaagi doonaa 5 farsamo oo cajiib ah kuwaas oo aad u isticmaali doonto Google app ku jira mobilkaaga. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh dhamaan macaamiisha murasa.com kusoo dhawaada barnaamijkeeni wiiglaha ee Murasa Technology Review. koobaad aynu isticmaali karno Google app-ka mobilkeena ayaa waxay tahay in aynu ku bedelno qoraalladayna ku haysano hab hard ahaan ah inaynu ugu bedelno hab software ahaan ah kaasoo aynu ku dhexidid gareyn karno mobilkeena dhexdiisa. waxaanu samayn doonaa waxaanu tagi doonaa Google app-ka mobilkeena kadib waxaanu sii dooran doonaa icon-ka xagga ay naga muuqda. icon-ka markaynu doorno ayaa waxaanu ka sii dooran doonaa isaguna icon-ka textiga sheegaya ee halka naga muuqda. kadib waxaanu samayn doonaa waxaanu soo qaadanaa qoraalkeena ku haysan habka hard ahaanka aynu u baahanahay inaynu ku bedelno hab software ahaan. si fiican baynu ugu aadin doonaa qoraalka kadib waynu sawiri doonaa. markaynu sawirno ayaa waxaad arkaysaa imika qoraalka inuu dhammaan wada calaamadiyay. kadib waxaan oran doonaa select all markaan idhaahdo ayaa waxaan oran doonaa copy text si copy ahaan ugu qaato qoraalkii. copy text markaan idhaahdo ayaa waxaad arkaysaa imika inaan copy ku sito qoraalkii. kadib waxaan tagi doonaa editor-ka ku jira mobilkayga si aan bartaa wax uga bedelo ama aan wax ugu soo daro. editor-kii markaan tago ayaa waxaan samaysan doonaa khaanad cusub. kadib halkan ayaan ku dhex baas gareyn doonaa qoraalkii. waxaad arkaysaa imika qoraalkii waxaan ku dhaxaystaa mobilkayga. waxaan soo kala samayn karaa inaan wax ka bedelo amba haddii aan u baahanahay aan ku soo daro wax. farsamada labaad aynu isticmaali karno Google-ka mobilkeena ayaa waxay tahay in aynu ku raadino wax hab sawir ahaan. waxaan tagi doonaa Google-ka ayaan tagi doonaa kadib si markii hore waxaan dooran doonaa icon-ka markaan doorto ayaa waxaan dooran doonaa icon-ka imika igu taagan yahay ee sheegaya search-ka ama meesha wax laga baaro. kadib waxaan soo qaadi doonaa mobilkan ayaan imika soo qaadi doonaa anigoo raba in mobilkan aan u raadiyo sawiraantiisa iyo macluumaadkiisa. kadib waxaan samayn doonaa mobilka ayaan sawiri doonaa. mobilkii markaan sawiro ayaa waxaad arkaysaa imika inuu ii soo saaray mobilkan sawiraantiisii iyo sidoo kale magaciisii iyo information-kiisiiba. farsamada saddexaad aynu isticmaali karno Google app-ka mobilkeena ayaa waxay tahay in aynu ku turjumi karno qoraalada inagoo isticmaalna inaynu sawirno qoraalkii kadibna aynu si automatic ahaan ugu turjino luqadda aynu u baahanahay. waxaanu tagi doonaa Google app-ka mobilkeena kadib icon-ka ayaan ka sii dooran doonaa. kadib waxaanu sii dooran doonaa icon-ka xagga ay naga muuqday sheegaya translation-ka. waxaan soo qaadi doonaa warqadan ayaan soo qaadi doonaa. kadib warqadii markaan si fiican ugu aadiyo ee qoraalkii si fiican igu qabto ayaa waxaan samayn doonaa waan sawiri doonaa. markaan sawiro ayaa waxaan oran doonaa waxaad igu furtaa Google Translate-ka igu furmaan oran doonaa. kadib markaan taabto ayaa waxaan samayn doonaa waxaan awood u leeyahay imika inaan ku turjumo luqadda u baahanahay. haddaan u baahanahay imika inaan ku turjumo luqadda Soomaaliga oo kale xaggan ayaan tegayaa. kadib waxaan dooran doonaa luqaddii Soomaaliga ayaan dooran doonaa. kadib markaan luqaddii Soomaaliga doorto ayaa waxaad arkaysaa imika qoraalkaygii markii hore Ingiriiska ahaa inuu igu turjumay luqadda Soomaaliga. farsamada afraad aynu isticmaali karno Google-ka mobilkeena ayaa waxay tahay in aynu ka maarmi karno inaynu soo download gareysano gameska culculus kuwaasi oo inaga ku sameynaya mobilkeeni in ay ku keenaan culays haddii uu yar yahay RAM-ka mobilkaagu. waxaad samayn doontaa game aad u baahan tahay inaad ku ciyaarto amba haddii kale qof kale uu ku ciyaaraba kaliya adoon soo download gareyn waxaad ugu qori doontaa xaggan imika soo qaad waxaad u baahan tahay inaad ku ciyaarto game-ka maska. kadib xagga ayaad ku qori doontaa Snake Game. xagga markaad ku qorto game-kii maska ayaa waxaad toos u oran doontaa play adigoo bartan si toos uga dhex ciyaari kara game-kii aad u baahnayd halkii markii hore aad ka soo download gareysan lahayd kadibna uu kaaga keen lahaa mobilkaagii inuu ka cusleeyo. farsamada shanaad
aynu adeegsan karno Google App-ka mobile-keena ayaa waxa tahay inaynu ka raadin karno YouTube-ka codadka iyo muuqaalada kuwaasi oo aynaan garanayn wixii aynu ku qori lahayn amba wixii aynu ku baari lahayn haddaynu u baahno in aynu helno waxa tagi doontaa icon-ka microphone-ka ee halka ka muuqda kadib ka marka tagto ayaa waxaan u dhaweyn doonaa codka aynu u baahanahay in aynu helno tusaale imika waxaan sameyn doonaa waxaan taaban doonaa icon-ka ayaan taaban doonaa kadib waxaan isku dayi doonaa inaan helo nashiida bata ay kaga jirto YouTube-ka icon-ka ayaan taabtay waxaan u dhaweyn doonaa nashiidadii waxaad arkaysaa iminka inaynu si fudud ku helnay nashiidadani bartii ay ka taalaan halka ay kaga jirto YouTube-ka waxaan rajeynayaa inaad si fiican u fahantay basoo kale ay ku anfacdayba dhammaan siraha ku jira Google App-ka mobile-keena waxaan soo kale rajeynayaa inaad la wadaagi doonto dhammaan asxaabtaada si iyaguna ay uga faa'iideystaan